waxaynu dhex mushaaxeynaa duni kale oo wada dahabi ah taasi oo ay mar kale ka talinayso kooxda caanka ah ee lagu magacaabo Manchester City. habeenku caawana waxa ay ku babaratay Tottenham oo marti ay ugu noqotayba garoonkeedii weynaa ee Wembley Stadium. goolka qura ee lagu dubtayna kooxda Tottenham waxa uu ahaa mid shaqadiisa uu lahaa Raheem Sterling, halka dhalintiisana uu lahaa daqiiqadii 6aad wiilka reer Algeria ee Riyad Mahrez. عدى حلو ستيرلينج، ممكن هدف الأول. جول رياض محرز أمامنا هنا في هذه اللقطة. يعرف الطريق دائما وأبدا عندما كان يلعب في ظروف ليستر. habeenku caawana dhinac kaleba haddii loo dhigo waxa ay noqonaysaa habeen ay kulmeen qabtii kooxda Tottenham oo guuldaro ka qaabishay Manchester City iyo wiiqdii macallin Julian Lopetegui oo laga ceyriyay xilkiisii macallinnimo ee kooxda Real Madrid ka gadaal markii guuldaro culays badan uu ka qaabilay naadiga reer Catalonia ee Barcelona. عثمان الخامس ولعت زلزال في الكامب نو، حتى فيدال خذا فيهم نصيب. فيدال يسجل الخامس. 5 وخميس